waxaa laga yaabaa dhalinyaro fara badan ee dunida jooga in ay dhashaan kadibna ay dhintaan sababtoo ah ma garanayaan ama ma fahmin awoodaha Ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'ala maxaa yeela naftaada oo fahamto waa noloshaada oo hormarisa يعني نفتاد إنها فهمته وحي كدغان تahay noloshaada inaad hormariso hadii aadan garaneyn naftaada hadii aadan garaneyn awoodahaaga hadii aadan garaneyn waxa ku fiican tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay nolosha inaad ku guuleysato aad iyo aad ay u culus tahay ee adag tahay waxa laga yaabaa in Ilaahay ku siiyay awoodo aan caadi ahayn oo cajiib ah laakiin aadan garaneyn waxa laga yaabaa in aad tahay qof aad iyo aad u fasaaxo badan oo saameyn ballaaran ku yeelan kara bulshada qaybaheeda kala duwan laakiin aadan garaneyn waxa laga yaabaa in aad tahay qof qoraa ah oo aad iyo aad wax u qora oo laga yaabo raad ballaaran inuu dunida uga tagi lahaay laakiin aan garanayn waxa laga yaabaa in aad tahay qof qaari'ul qur'aan ah oo xusnu sawt ah oo cod cajiib leh laakiin haddana aan garanayn marka intaas oo la isku geeyay maxay keenaysaa qofka si nolosha uu hormaro waa marka hore naftiisa inuu barto inuu ogaado shakhsiyadiisa inuu ogaado awoodihiisa inuu fahmo dadka soo ula tacaamulayo inuu ogaado sidoo dadka u saameyn kara sidoo leader u noqon kara iyo hogaamiye u noqon kara